قوان كني وقوان لوديه وقوان هبر جعل قادتي دقن كهبر جعلنا وحلقوا يقانا إن قوان كيدو وصعوده وحا إنه ولي جرانتا ودينا وحا قديدا بيلا هبر جعلوا أنا هذه أذكر ما هذا غير قوان كنا ينوسوا قبادي قوان كنا ينوسوا قبادي هبر جعلوا مانتا وحي قوان ستين ديسو مشرح عبد الرحمن عبد الله عرو إيوه مدحوينه كحيقان كيسا أمباسطور محمد علي وقوان هبر جعلو وحي قادتي وتحقليسي عدسيقي بيلها قرحجيس يعني وراءها النهي إذا كغيمي أين كوي ديستان عدك نكا أن مانتا إلو إيمان يعني وحوين ويديسان يرقى إلو دبجري إيقوبا فرابدن لو كيمي أين دول فريستي وحبر جعلو أمي غايبين وحي تحقليسي عدي أوتيمي إيه وحويديستي مدحوينه وحنا ويديستي حلك هيانا مجرو بيشي سو إنو تيمينا ويمسين جري مركا إنو تيمادا إنو مايمن هبر جعلو وحي واركتا إني ككافتو تاي إني هبر جعلو وحويديستو وايو ما بريتو أولوليه بالله كعيا قوان كاسي قوان ويه waxaan kula talinayaa beelaha Somaliland ay ugu horeeyaan beelaha Ciise iyo Samaroon beelaha kale ee darafyada inay go'aanka nala qaataan dalku wuxuu u baahan yahay maanta kuleel siyaasadeed uu soo maray maanta inuu aanu aragnay cid marxaladan uu ku jirta inuu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo musharaxa madaxweyne ku xigeenka iyo ragarbeedka la socda inay yihiin xaaladda dadka maanta cid ururi kareysa bacadka u daatay beelaha Somaliland iyo ragaanu xeegaanta wada lahayn ee maanta gulka cokana maanta waxaan leeyahay inay kulli taageeraan wuxuu looga adeerkayo digaala jaamac daba dhigan loolan jiray oo bari reer garada ka soo hayaamay ka soo xanaaqay degmada garadag baynu ahayd la hayaami reerkii ninkiisii harsanayo reer Soomaaliland waxaan leenahay waa la hayaamiyay habar jecel hoggaanka u dhufatay haddaanu furaanu dhiibaynaana furii caawanu dhiibni maalin hore waxaan rasuulkii habar jecel way afuufaysaa waa kii binaanti binaadna afuuf jira kii ilaahay maaha caawa waanu afuufnay ninkii meel kale u kacaya leexleexanaya isagaa yaqaana ururka ka war xisbiga wadani dee beelihii wadi jiray ee garxajis madaxweynena waa doonaya dawladana way garab taagan yihiin ragga habar jeclo hadday garatay in kaahna maanta mar hadday isbahaysiga wadani dhisayso in la dhiso arrinkaasina waa go'aan habar jeclo war xunow lagu waa ninkii lahaa afarta qaad walaha ama se hadii la baleeyahay xamaalinta burco ku shirinayay laha waa taa habar jeclo waa taa go'aankeedina waa ka ama gulcur baa laga cadeeyaa ama gulcur baa laga madoobeeyaa ama gabala laga cadeeyaa go'aankii habar jeclo uu cad yahay Somaliland waxaan leeyahay hayaanka ka hadhina go'aanka iyaga ku dhiirado ku darsan saaxiibkay Muuse Biixi in adeerkay saaxiibkay waxaan leeyahay oday adeerkay oo loolan jiray Yuusuf Daahir Yuusuf Bulay baa wuxuu yimi dumar baruura ku sheelanaya bancade tuka dul taagan oo hadh ma haysto geed ma haysto bancade waa banaan wuxuu la taliyay taagan leeyahay ba tukana la taliyay buu wuxuu yiri war waxa baruura iyo laf la jeeyo tuuro ma leh qanjad ma leh waxa haysta waa dumar oo waxba ku siin maayaan wararad iskaga tag waxaan leeyahay Muuse in adeer Somaliland maanta inta iidoor iyo beelaha yar la yaala is haysta taladaadi waa taa ku kala tagtay waa taa ku kala carartay waxaan leeyahay Muuse in adeer inta joogtay yaanay gacantaada iyo tala xumadaada ku kala go'ine go'aankii waad aragtaa dadkii siyaasadda hogaamin jiray ee sheexi jiray Somaliland waa raacaysaa beelaha kalena way raacayaan maanta inta jirta uu tuub maanta tanaasul samee taasi intaasaan Muusena taladaan siinayaa taa weeye beeliya habar jeclaan soo maray
ciidamadii aan soo maray dalkii aan inta badan soo wareegay go'aan baanu idinka sugaynaa baa leeyahay go'aanka habar jeclo waa kaa weeye halkaasuu ku calaamadsan yahay kaasaad qaadanaysaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin